Halkani waa deefsame iyo aniga oo ah Ahmed Deef Xasan. Ma haysataa baasaboor Soomaali? Ma u baahantahay Romania timaatid? Qiimaha fiisahana waa 80 euro oo keliya, amba u dhigantaa $90 qiimo ahaan. Hagaha dhammaystiran ee siyaasadda fiisaha Romania, habka codsiga iyo noocyada fiisaha. Romania waa wadan ku yaal koonfur bari Yurub oo laga yaabo inaad ogaato sababtoo ah waa hoyga gobolka Transylvania. Si kastaba ha ahaatee, Romania waxaa loo yaqaan wax badan oo intaas ka badan, inkasta oo ay qalcadaha Gothic iyo magaalooyinkii dhexe ay hubaal yihiin qayb weyn oo ka mid ah soo jiidashada. Haddii aad qorshaynayso inaad booqato Romania iyadoo ku xiran dhalashadaada iyo ujeeddada safarka, waxaa laga yaabaa inaad ka hor codsato fiisaha Romania. Nasiib wanaag, Romania waxay ka dhigtay habka codsiga fiisaha Romania mid sahlan iyadoo qayb ka mid ah dijitaal ah. Maqaalkani waa hage ku saabsan sida loo codsado fiisaha Romania, dukumeentiyada aad u baahan doonto, iyo su'aalaha kale ee badanaa la isweydiiyo. Ma u baahanahay fiisaha si aan u aado Romania? Waxaad u baahan tahay fiisaha Romania haddii aad ka timid mid ka mid ah dalalkaasi ku muuqda marka ay dalbanayaan fiisaha joogitaan gaaban. Muwaadiniinta ka yimid waddamadan waa inay haystaan warqad martiqaad ah, taas oo uu taageeray kormeeraha guud ee socdaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Romania. Sidee loo codsadaa fiisaha Romania? Waxaad ku dalban kartaa fiisaha Romania siyaabaha soo socda. Sida naftaada, haddii aad qof kale ka codsanayso fiisaha, qof kasta waa inuu soo gudbiyaa codsigiisa. Xataa haddii aad leedahay ilmo aan qaangaar ahayn, waa inaad u bilowdaa codsi gooni ah adiga oo matalaya ilmaha, iyadoo loo marayo wakiil sharci. Dada yar la safrida koox dalxiis, iyadoo loo marayo hay'ad dalxiis oo la aqoonsan yahay haddii aad u safrayso Romania oo qayb ka ah safar habaysan. Goorma ayaan dalban karaa fiisaha Romania? Maskaxda ku hay in aad dalbato fiisaha ugu yaraan 2 toddobaad ka hor intaadan ku talo jirin inaad u safarto Romania, laakiin ugu yaraan 3 bilood ka hor. Tallaabooyinka codsiga dalkugalka Romania. Markaad codsanayso fiisaha Romania, waa inaad marka hore bilowdo arjiga online-ka ah, kadibna faylka codsiga fiisaha shakhsi ahaan ugu xirayso ergada ama qunsuliyadda Romania. Habka codsiga fiisaha Romania waa sida soo socota. Codsiga ku bilow online. Ka bilow codsigaaga fiisaha Romania ee khadka tooska ah bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee Romania. Inta lagu jiro qaybtan nidaamka codsiga, waa in aad gasho kombuyuutar taageera xaaladda codsiga iyo sidoo kale Adobe Reader ama nooc kale oo akhristaha PDF ah. Inta lagu jiro habka codsiga khadka tooska ah, waa inaad ka jawaabtaa su'aalo dhowr ah oo aad soo gelisaa nuqullo elektaroonig ah dukumeentiyada loo baahan yahay. Dhammaan dukumeentiyada aad hayso luuqadda waa in ay ahaadaan Ingiriis ama Romani. Haddii aysan ahayn, u tarjum luuqadda Ingiriis. U soo gudbi dukumeentiyada qunsuliyadda safaaradda Romania. Markaad codsanayso fiisaha Romania, waa inaad haysataa dhowr dukumeenti oo taageeraya codsigaaga. Waa inaad haysataa orjinaalka dhammaan dukumeentiyada aad internetka ku soo gudbisay markii aad ka soo muuqato qunsuliyadda Romania. Adeegyada qunsuliyadda Romania ayaa dib u eegis ku sameeya codsigaaga, ku ogeysiiya natiijada, waxayna kuu sheegayaan inaad u baahan tahay dukumeenti dheeraad ah. Keen koobiyada dukumeentiyada loo baahan yahay marka aad u safarto Romania, sababtoo ah saraakiisha socdaalka waxay ku weydiin karaan inay arkaan ka hor inta aysan go'aan ka gaarin inay kuu oggolaadaan inaad dalka soo gasho. Samee oo ka qaybgal ballanta fiisaha Romania. Marka codsigaaga la ansixiyo, waxa ay ku qoran tahay valid codsiga khadka tooska ah. Adeegyada qunsuliyadda Romania waxay dejinayaan ballan marka ay tahay inaad shakhsi ahaan uga soo horjeedo qunsuliyadda Romania si aad u hesho dukumeentigaaga orjinaalka ah ee la xaqiijiyey oo aad u harayso faylka codsiga fiisaha Romania. Ballanta waa inaad bixisaa qarashka habaynta fiisaha Romania. Sug habaynta. Waxaad isticmaali kartaa adeega codsiga online-ka si aad u hubiso heerka codsigaaga. Shaqaalaha qunsuliyadda Romania ayaa ku wargelin doona goorta aad ku noqon karto qunsuliyadda si aad u hesho natiijada fiisahaaga. Haddii fiisaha Romania la oggolaado, waxay ku dejin doonaan baasaboorkaaga, waxaana laguu oggol yahay inaad u safarto Romania. Intee in leeg ayay qaadataa in laga shaqeeyo fiisaha Romania?
wakhtiga ay qaadanayso fiisaha Romania in lagu shaqeeyo waxay noqon kartaa inta u dhaxaysa 10 ilaa 14 maalmood oo shaqo ama ka badan. Wakhtiga ka shaqaynta fiisaha Romania waxay ku xidhan tahay kiiska gaarka ah. Sidan oo kale, maamulka socdaalka Romania waxay kugula talinayaan inaad dalbato ugu yaraan 2 toddobaad ka hor intaadan qorshaynin inaad safarto, laakiin waxaa ugu fiican ugu yaraan 3 bilood ka hor. Haddii aad codsanayso fiisaha joogitaan dheer, waa inaad dalbataa ugu yaraan 45 maalmood ka hor intaadan qorshaynin inaad safarto. Waa imisa qiimaha fiisaha Romania? Markaad codsiga fiisahaaga ku soo gudbiso konsuliyadda Romania ama ergada diblomaasiyadeed, waa inaad sidoo kale bixisaa khidmad fiisaha Romania oo aan la soo celin karin. Qiimaha fiisaha Romania waa sida soo socota. Fiisaha joogitaanka gaaban qiimaha waa 80 euro. Fiisaha joogitaanka dheer qiimaha waa 120 euro. Dalku galka garoonka diyaaradaha qiimaha waa 80 euro. Waa ku mahadsan tahay la socodkaga wixii aad u baahan tahay ee caawinimo ah. Waan ku garab taganahay, mahadsanidiin.